waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada taariikhiga ah ee Taleex ee caasimadda ku meel gaarka u ah dawlad goboleedka Khaatume State of Soomaaliya. Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo ka soo kicitimay tuulada Sarmaanyo oo ka tirsan xarunta taariikhiga ah ee magaalada Taleex. waxaana garaadka halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada dawlad goboleedka Khaatume State Mukhtaar Ibrahim Xabashi, wasiirka arrimaha gudaha Yaasiin Axmed Sulub, wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah Xuseen Salebaan Dhagaweyne, wasiirka xigeenka adeega bulshada Cabdifataax Xismaan Faarax, iyo sidoo kale Suldaan Siciid Guuleed Muuse oo ka mid ah golaha sare ee dhaqanka ee dawlad goboleedka Khaatume State. isla markaasina qayb ka ah soo dhaweynta Garaad Salebaan Garaad Maxamed waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Suldaan Siciid Guuleed Muuse. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Garaad Salebaan ku soo dhawow anagoo ismadii halkan joogay waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladaadii Taleex, magaalo madaxda Khaatumo iyadaan kugu soo dhaweynaynaa kuna soo dhawow garaad. odayaasha xuqaasha ismada saxaafadda dadweynaha magaalada Taleex dadka joogan oo shirarka u yimid dhamaantii waa salaamaya. salaan ka bacdi aad iyo aad baa loo fiican yahay, anagoo iska hawlo badan tahay, hawlo badan baa iska jirta dhulka meel walba hawl baa ka jirta. inta hadda ka maqnaa xamaana ku maqnaana ma jirin, wanaag baan ku maqnaa iyo wax jiidis iyo maarkaas ka balada hawfiyada ku jira kala celintood. aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad saa yeeshaana waa la socday. aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta wanaagsan iyo kala gacaylka aad muujisayna waa ku mahadsantihiin. Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud baa noo yimid, aad baan ugu faraxsanahay. garaadku sidaa uu sheegay waxaan insha Allah ka rajaynaynaa duco roob intuu noo yimid barwaaqaba. garaad ku soo dhawow magaaladaadii waana lagu sugayay, dadkuna aad bay ku sugayeen. ahlan wa sahlan wa marxaba ya garaad. maanta waxa magaalada Taleex inuu ku yimid Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo ka yimid magaalada Sarmaanyo. mudane garaad ku soo dhawow magaaladaadii iyo caasimadda ku meel gaarka ah oo ismada horena ay hore kaaga soo horeeyeen. karaamadaadana waxa marxaati ka ah markaad noo soo gashay ama aad xiinka magaalada soo socotay roobkii waxa bartana saaray insha Allah biidnillaahi kariim waana nooga sii badanay mar haddaad noo timiye. ku soo dhawow mudane garaad. garaad soo dhaweyn caasimadii maamulka Khaatume State of Soomaaliya baan ku soo dhaweynaynaa. garaadku wuxuu u yimid inuu ka soo qayb galo shirka dhici doona berrito oo ay bisha tahay 10 ilaahay ku soo dhaweynaa garaad. rajaynaynaa ilaahay inuu shirkeena ka soo saaro mid khayr qaba. ku soo dhawow garaad. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. imaanshaha Garaad Salebaan Garaad Maxamed ayaa ku soo aadayay xilli golaha sare ee dhaqanka ee dawlad goboleedka Khaatume State of Soomaaliya ay ku sugan yihiin xarunta taariikhiga ah ee magaalada Taleex, taasi oo la filayo inuu shir uga bilaabmo golaha dhaqanka iyo golaha xukuumadda Khaatume State. sidoo kalena waxaa halkaasi ka curtay roobabka guga kuwaasi oo ka cusboonaaday magaalada Taleex iyo dhammaanba deegaamada hoos yimaada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir Shombe, telefishinka caalamiga ee Somsat, Taleex.